الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأماجد الأخيار، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه ما خير ما يتزود إلى يوم المعاد. ولا الليال الله inaga aqbale waxaynu soo gudanay bishii Ramadaan iyo cidii Allah u sakhiray shawaalkii. waa amal marka la israaciyo nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inuu u dhigmo 360 maalmood amalkii la sameeyay. Ramadaan qofka sooma, shawaalna raaciya, waa isagoo sanadkii soomo kale. waafajintaasi waa nicmo inuu Ilaahay ugu mahadnaqayn inuu ina waafajiyo hawsha weyn aynu abuuranay. nicmada waxa iyaduna ka sii weyn inuu Ilaahay ka aqbalo. waxaynu ogsoonahay hadiya jeer amal walba marka la qabto qiimeyn ba daba taala in amalka la qiimeeyo la yiraahdo sidoo hirgalay hawlaha adduunyada waa laga xisaabtamaa maxay noo hirgalay baa la yiraahdaa maxaa sadhinmay. waxa kale inuu ogsoonahay qof hadduu xanuunsado shaybaar lagu sameeyo dhakhtarku dawo u qoro wuxuu dhaa muddo kadib igu soo noqo. muxuu uga jeedaa? wuxuu eegayaa dawadiisii bal sida jirka wax u tartay, in loo kordhinayo, in laga joojinayo, shaybaar dambe loo samaynayo. shaybaar dambe loo sameeyaa macnaheedu waxa weeye dawada nafcigeedii si loo ogaado iyo qofka caafimaadkiisa. marka cibaadada waa caafimaadkii ruuxdeena iyo nafteena iyo nolosheena. dib u qiimeyn weeye markaa. dib u qiimeyntii baa muhiim ah iyo shaybaarkii dambe aynu ku samayn lahayn cibaadada iyo caafimaad qabkeeda iyo caafimaad qabkaasi calaamaduhu leeyahay. waxaynu ku soo ururinaynaa aqbalka cibaadada inuu Ilaahay cibaadadan inaga aqbalay isaga og Rabbi subhanahu wa ta'ala, laakiin laha calaamaad inuu Ilaahay aqbalay cibaadadaadii iyo soomkii, salaadii, sadaqadii, quraankii, dhikrigii, waxa la wixii cibaada aynu soo sameeyeen haddana sii wadno calaamaday leedahay. calaamadahaas aynu markaa isku shaybaaraynaayo aynu nafteena ku eegaynaa u bandhigaynaa. haddii aynu nafteena ku aragna mid fiican weey Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waanaynu sii joogtaynaynaa. haddii aynu markaa calaamadaha waxba ka garan weynana waa inaynu degdeg dib u saxno intaynu fursad haysano. calaamadaha waxa kowka inuu qofku daayo dambiyadu sameyn jiray Ramadaan ka hor. dambiyadaasi noocyo kala duwan bay yeeshaan. qofku dambi Ilaahay ka galo, miduu addoomaha ka galo, miduu naftiisa ka galo. dambiyadu way badan yihiin. mid walbana Ilaahay buu ka galayaa qof. Ilaahay baa ku diiday subxaanahu wa ta'ala. marka qofkii Ramadaan xaalkiisu hagaagay sidii hore uu ka wanaagsanaa sidii Ramadaan buu ku socdaa mise sidii ka horeysay. idan waa inaanu ku noqonin wixii dambi ahaa ee qofkaasi berigii hore uu ka toobad keenay qabla Ramadaan ee barwadu ay ka mid ahayd. macnaheedu markaa dulmiga dadka uu dulmiyaya uu ka mid ahaa hadduu waxyaabaha iska daayay calaamadu waxay u tahay camalkiisii la aqbalay. waxaynu idhaahnaa qof hebel arrinkiisu uu hagaagayo Ilaahay soomkii iyo salaadii iyo xajkii baa laga aqbalayo sidii hore u ahaan jiray uu bedelay. calaamadaha waxa ka mid ah cabsi. camalkaaga aad u cabsanayso talow ma laga aqbalay mise lagama aqbalin. aayadda u dambaysaynu akhriyayna macnaha sheegaysa haddaynu tafsiirkeeda ku soo celinno aayadda suuratul mu'minuun ku sugan aaya 60 min suuratul mu'minuun. nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa Caaisha weydiisay macnaha aayaddan. ilaahay wuxuu yidhi dadka mu'miniinta ah walladhiina yuutuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun. camalkay la imanayaan waa dadka la yimaada iyagoo cabsanaya. marka waxay tidhi aayadda ilaa asxaabtuna wixii quraanka ay garan waayeen nabigii bay ula noqonayaan sallallahu alayhi wasallam. nabiguna markaas uu cadeynaya u fasiraya waanzalna ilayka dhikra litubayyana lin-naasi ma nuzila ilayhim. dadka waxyiga loo soo dejiyay adaa u fasiraya baa rasuulallah. qofka noocani ee camalkiisa ka cabsanaya ma qofkii khamriga cabayba ma qofkii waxadayba ee xumaanta sameeyay ka warwarsan maya waa qofkii soon iyo salaad iyo sadaqa isku daraya haddana laha ma laga aqbalaya. sidaa u fahano kii dambi sameeyay ma waa kii daacad sameeyay. marka ka daacada sameeyay
ayaa daacadiisii la talo ilaahay ma kaa aqbalay talo ma lagu soo celiyo wuu warwarsayn waa calaamadaha ay ka mid tahay calaamadaha waxa saddexaad oo ka mid ah tawfiiqu ilaa acmaalin saalixatin bacdaha inaad halkii uun ku egaanine camalo wanaagsan oo kale aad sii kordhiso oo dee qofku marka uu xumaan sameeyana xumaan bay u dhiibta marka uu qofku khayr sameeyay daacana daaco kale ayay u sii gudbisaa sidaa daraaddeed hadduu arko iyada oo uu khayrkii sii kororhsanayo macnaheedu markaa waxa weeyaan in la aqbalay camalkiisi waxaa ka mid ah afraad istisqaaru lcamal wa cadamu alcujbi waalguruuri bih camalkaad samaynaysa inaanu ku cajabinin oo aanad dadka hoos u eegin aanad odhan dadka kale waxba kuwan waxay qabsadeen ama waxay sameeyeenoo camali ma jira adigu ramadaantana aad baad u dadaashay cibaadooyin badan baad samaysay oon camalkaagu aanu camal kula weyn waa inaanu noqon laakiin camalkaagu waa inuu kula yaryahay xasan albasri taabicigaa jaliilka raximahu llah wuxuu fasirayaa qowl allahi tacaala suuratu lmudathir bilowgeeda yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir wاrujza fahjur walaa tamnun tastakfir afartaa camal soo samee baa ilaahay uhi nabiga dadka u digoo dacwadda samee ilaahayna weynee tahaaradana ku dadaal towxiidkana wanaaji oo waxaa khuraafaadka iyo gaalnimada iskaga durug intaasoo cibaado ah marka aad samayso walaa tamnun tastakfir markaa wuxuu ku fasiray laa tamnun bicamalika calaa rabbika tastakfir inaad ilaahay wax u qabatay ha u arkinoo camalkaagu yuu kula weynaanin camalkaa aad ku dadaashay midaad ilaahay ugu mano sheegato wax weyna yuu kula noqonin macaanida aayaadka ka mid mid ka mid a taa macnaheedu markaa waxa weeye qofkii waxa uu weli usii warwarsan yahay camalkiisii qof iscajabiyeyna ma aha calaamadahay taasina ka mid tahay nebiguna sala allahu calayhi wasalam isagoo taa ummadda ku tarbiyeynaya asxaabtu la hadlo waxau yidhi waxaa ogaataan qofna inaanu camalkiisa jannada ku gelayn yuu kala weynaan camalkaaga oo adigana ka warran bay idhaha ilaa adigu rasuulka ilaahay baa too dadaalkaagu aad buu u badan yahay markaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam walaa ana ilaa an yatagamadanii allaahu biraxmatin minh ilaahay inuu naxariistiisa dhex dhiga mooyaane anigana camalkaygu jannada iima goynaya buu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam calaamadaha waxaa ka mid oo shanaad xubu daacati wa kurhu lmacsiya qofku markuu ramadaan dabamar uu ka soo doogo dadaalkaa badan waa inuu shayga daacadii dhadhan usii sameeyaa sii macaasadaa cibaadada dembigana nacaa isla markaana caafimaad qabkii bay sheegaysaa taas ilaahay baa wuxu uhi aladiina aamanuu watadma-inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluub dadku wuxuu ilaahay ammaanay diinta iyo dikriga ilaahay iyo xuska alleh qalbigooda uu ku degayo ee macaansanaya sacaado iyo raaxo ka helaya waxaa kaloo rabbunaa subxaanah isagoo asxaabta u mano sheeganaya deeqdu ilaahay siiyey waxa uhi waxababa ilaykum اliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan ulaa'ika hum raashiduun intaasoo nicmaa ilaahay u idin siiyo wixii wanaagsanaana wuu idin jeclaysiiyey wixii xumaana wuu idin nacsiiyey marka haddaad aragto wixii aad berigii hore samayn jirteed ka toobadkeentay adigoo aada u karaahaysanaya daacadii aada la soo qabsatayna jeceloo macaansanaya calaamadahay ka mid calaamadaha waxaa ka mid oo lixaad alrajaau wa kahratu ducaa inaynaan cabsi un ku noolaanina laakiin rajada ilaahay aynu ka qabno dembi dhaafkiisa iyo raali noqoshiisa iyo jannadiisana aynu weynayno ducadana badinayno dadaalkii waynu samaynay ducadiina waa ku daraynaa rajadiina waynu badinaynaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuu dadaalaya haddana wuu ducaysanaya waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim kacbadii bay dhisayaan way ducaysanayaan rajona ilaahay bay ka qabaan markaa cabsi iyo rajo labadaas aynu isku daraynaa inaynu ilaahay ka cabsanno cadhadiisa iyo cadaabkiisa jannadiisa iyo raali noqoshiisana rajayno isla markaana dadaalkiisii wadno waxaa lixaadoo ka mid ah ataysiiru lidaacati walibcaadu can ilmacsiya inaad aragto inuu ilaahay kuu furay cibaadada oo dadaalkaaga qura maaha waxyaaba badan ood la yaabto oo aad islahayd meelaha kuwan kari maysid baa ilaahay kuu sahlaya fa amaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusraa
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وضدك يوكل بحي وقالنا الله فدودية وحي وناكسناهم أيون بوضع قالنا وحي حماهم بوضع على مدها كمت على مدها وحكم ذا سيدات حب الصالحين وبغض أهل المعاصي قفك دتك وناكسن إنه تعلاده دتك حن معصية أهل كوانا إنه نعه وتا معناه ذو حويان هديه مركي ورق الله عنا قفك يا ربع يا كوحي وحول سعودي وانو هذا إنه كأك بدشاه إسكالها وين هذا كهرو مراه مثلا وحكو مركي ورقكم مشغول سنة dadkii macsiyada sameynaya iyo mafruushadoodii iyo la socodkoodii iyo saaxiibtinimadoodii iyo heshigoodii wixiiba u dhaafo uu bedelo iyagii dacwad buu fidinaya iyo diin ilaahay buu gaarsiinaya dadka wanaagsanna wuu la rafiiqaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa waxa uu leeyahay man ahabba lillahi wa abqada lillahi wa a'ta lillahi faqad istakmala al-iiman qofku ciduu jeclaanaya ilaahay buu jeclaanaya ciduu nacaya ilaahay daraadii buu jeclaanaya wixii uu bixinaya waa ilaahay daraadii wuxuu diidaya waa ilaahay daraadii qiimeyntiisu ma aha maslaxadiisa iyo ehelkiisa iyo cid kale ma aha waa ilaahay daraadii ilaahay muxuu raali ka yahay ayuu wax ku qiimeynaya waxa kamid ah sagaalaad kathratu istighfar inuu qofku wardiga badiyo istighfarta waliba astaghfirullah ayuu aad u badinaya adigoo camalkii wanaagsanaa ka soo baxay maxaad istighfaar ka akhriha oran camal kasto cibaada arkaan islaamku uu kamid yahay markaynu dhameeyna ilaahay wuxuu inoo jideeyay istighfaar xajka markaynu dhameeyna ilaahay wuxuu leeyahay thumma afiidu min haythu afaada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim marka xajka soo dhameysaan ilaahay dambi dhaaf weydiista salaada markaynu ka baxna nabigu wuxuu inoo jideeyay sallallahu alayhi wasallam saddex jeer inaynu ku celina maxay استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكلمة ورينا قصة بحية قيام الليل أبينكي مركا لما يسوى صلاة الليل إلهي وحكوا أمانا أولياديس وبالأسحار هم يستغفرون أبينكي بعبادة وضان مركا سي استغفار تنه راعيان علمي جاي عقيدة ده مركي النبي قال الله فريه هدنا وحل استغفار راعي مركا علمي قبرتين عقيدة ده وناجسه استغفار كل فاق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وحب الله فريبا رسولك صلى الله عليه وسلم نلوشي سبا إنه كل صور لما يستره استغفار نلوشي سي قيمها بطنا إذا كفاحة إيا جهاد إيا الدين إيا الدعوة ككوبنين أيها إلهي والاستغفار كل صور لما يستر صورة إذا جاء معناها الشيء يسويه waxaa tobnaad oo kamida waxyaabaha aynu ku shaybaarayna camaladeenna almudaawamatu cala alacmaali asaalixa haddaad kalaba goyn weydo camalkii aynu ramadaan la soo qabsannay baad kala jari weyday calaamad weeye sheegaysa in la aqbalay camalkeena dee cibaadooyinkaynu gudanayna ramadaan umaynaan gudanaynin ilaahay daraaddii baynu la imanayna wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin camal la odhan karo ramadaan buu ku gooni ahaa waa soomka waajibnimadiisii iyo sakaat fidrigiyo la socoto ciid yahay laakiin soomkii sunnah uu sii soconaya quraankii baa soconaya salaatu leylkii baa soconaya halkii taraawiixda ku jira cilmiga barashadiisii dacwadii sadaqadii wixii oo dhammi halkii xasba istitaaca kolba qofku siduu u kari karayo bartii bay ka sii socdaa taa macnaheedu waxa weeye qofkii in la aqbalay camalkiisii rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa idaa camila camalan أثبته حديث كي صحيح مسلم كسقنا مركو النبي وعمل سميه وسوق جري dadkana wuxuu faraya wixii camal ka sugi karayaan la iman karayaan inay ku dadaalaan ahabbu al-amal ila Allah adwamuhu wa in qal haba yaraade camalka uu qofku sameeyo ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka uu joogteeyo marka aad joogtayso hadii aad kari weydo duruuf kugu timi daraadeed ama safara ama bukaana ama mashquula waa lagu qorayaa إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا قف قادو سفر أما بكوضو أو كري وهي عبادة سنة هاي وحلو قرية عبادة السمين شري مركو عافمات كقبي أمر هيركيسي تشوغي ونقا والله ليال وحالكا كم موضوع طبعا كاري مضاينو موجينا يال عمل كينينا نسكر دافين الديبو اجي داينو سمينا يديبو قيمين
taasina waxay sheegaysaa inaynu nafteena xisaabinayno waxay sheegaysaa inaynu camalkeena danaynayno waxay sheegaysaa inaynu aakhiro diyaaruna allah inaga aqbalo allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة